بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمابا أخيارتا هودا نغالا سعوتاي كسو دوادا ديغيستيال واربحنين وهدينا دوال إدمو مدحوينها ودنka Burkina Faso Ibrahim Traore oo weerar lagu qaaday kadib markii jabhado la sheegay in ay islaamiyiin yihiin la soo abaabulay waqooyiga wadankaasi ayaa dagaal ka dhacay waxaana si weyn u boonbooninaya saxaafadda iyo wadamada reer galbeedka iyada oo ay socdaan barabogandooyin ka dhan ah madaxweynaha wadankaasi oo ay doonayaan inay ka takhalusaan wadamada Mareykanka Faransiiska iyo weliba kuwa kale waxaa iyaguna ku lug leh arrimaha wadankaasi Shiinaha iyo weliba Ruushka ninkan dhalinyarada ee geesiga ah isla markaasina Afrika oo dhan xidig ama qorax u soo baxday in uu yahay dad badani ay u arkaan ayaa loo diidan yahay in uu wadankiisa hogaamiyo oo uu noolaado dagaalka halkaasi ka dhacay iyo sida uu wax u dhacay ilaa iyo hadda xogta laga hayo iyo wararka reer galbeedku ay soo saareen iyagoo sheegaya in ay la socdeen jabhadahaasi weerarka soo qaaday iyo halka ay weerareenba in badan oo ka mid a intii howluhu ay socdeen ayaynu faahfaahinaynaa sidoo kale shacabka waddankaasi ku nool oo madaxweynahooda garab istaagay waxqabadya lasoo bandhigay oo badan ayaa jira oo uu u sameeyey aysanna jirin inta la ogyahay waddan afrikaana oo waqti sidaasi u kooban madaxweynahoodu uu u sameeyey waxqabad intaasi la eg faahfaahin ayaynu arrimahaasi oo dhan ka bixinaynaa hadduu aan laydma iyo weliba kuwo kale oo dheeraada taarikhdu waxay ku beegan tahay 19 May sannada 2025 waana habeennimo talaado ah kusoo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan haddii ugu horreyn baa dhegaystayaal aynu ku bilowno sida dhammaanteenba aynu la soconno madaxweynaha waddanka Burkina Faso Ibrahim Traore oo ah 37 jir dhalinyaro ah oo waddankiisa inuu meel gaarsiiyo ajnabiga iyo shisheeyahana uu ka saaro wacad ku maray ayaa reer galbeedku si weyn ay uga soo horjeedsadeen waxaana kow ka ah waddanka Faransiiska oo asagu doonaya in uu waddankaasi si maamulo macdantiisa iyo sidoo kale khayraadkiisa dihinna uu weli sii daldasho maraykanka ayaa si rasmi ah u soo raacay maraykanka waxa ay samaynayaan in waddankaasi ay ka fuliyaan qorshayaal badan waxaa waddanka tegey NGO-yo ayaga u shaqeeya waxaa la fashiliyey maalmo ka hor haweeney la sheegay inay u dhalatay waddanka Faransiiska taasi oo ku soo gashay waddanka in ay tahay qof caawinhaya dumarka iyo carruurta ayadoo la arkahaya meelaha qaarkood ayadoo carruurta siin haysa raashin ama ninac iyo waxyaabo markaasi carruurtu ay jeceshahay iyo dumarka markaasi danyarta ah isla markaasina sawiro ay qoslahayaan la soo galahaysa balse markii u horreysay haweeneydaasi waddanka ay soo gashay ee sheegtay in ay tahay haweeney samafala ah oo hay-ado iyo waxyaabo